السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا اف سي تي في barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa falanqaynta siyaasadda. waxaan caawa ku soo qaadanaynaa madaxweyne xasan sheekh oo difaacday wax ka beddelkii dastuurka iyo dhamaystirkii dastuurka iyo weliba halkii sano oo extensionka ah loogu daray dowladda iyo weliba baarlamaanka. dowladda Soomaaliya ayaa maaragtay xigsanaysa in ay sharci tahay shaqadii baarlamaanku uu qabtay. barnaamijka caawa waxaan ku falaqaynaynaa xasan sheekh waxa uu garta u leeyahay sharciyan. madaxweyne xasan sheekh wuxuu gar u leeyahay wixii sharciya. madaxweyne xasan sheekh inuu madaxweyne noqdo maxaa sharci ka dhigay? baarlamaanka ayaa doortay. baarlamaankii doortay ayaa haddana u codeeyey hal sano extension ah iyo dhamaystirka dastuurka. madaxweynuhu si fiican ayuu u difaacday. waxaan soo qaadan doonaa qodobo muhiim ah oo khudbadiisii baarlamaanka uu ka jeediyey ka mid ah oo qodobadaas aan falaqayn doono, aan siin doono wuxuu gar u leeyahay, wuxuuse gar u lahayna aan sheegi doono. dhanka kale adduunka waxaa ku soo kordhay isbeddel cimilo oo sanadahan dambe soo kordhaya oo ah in kulaylka uu soo badanayo oo dhul fara badan uu gubanayo. qayb ka mid ah barnaamijka weeye aan kusoo qaadan doono arrimahaas maadaama ay xasaasi yihiin aan ku dhex darayno barnaamijka falaqaynta siyaasadda. dhanka kale Sacuudi Carabiya dhaxal sugaha MBS Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay inuu la shaqeynayo dowladda Israa'iil, madaxweyne kasto iyo ra'iisul wasaare kasto yimaado Israa'iil ah inuu la shaqeynayo, xiriirkoodana uu maalinba maalinta ka dambayso si fiicnaanayo, sanadba sanad ka dambeeyo uu si fiicnaanayo. dhanka kale wuxuu sheegay Iiraan hadday samaysato nuclear in Sacuudi Carabiyana ay samaysan doonto. soo dhawaada mar kale. sidaas awgeed waxaad muujiseen in baarlamaan oo aan weliba waxaan rabaa halkaan inaan si gaar uga xuso, waxaan ku guuldaraysanay ama aan kari weynay xataa dastuurka ku-meelgaarka inaan ku dhaqanno. dastuurkoo yaallo ku-meelgaarkaha oo qoraya wixii uu qorayay ayaa meel inta layska dhigo yaa bannaankaas halkaas baarlamaankaan lala tashan, xukuumad la warsanin, xaggaas inta la tago qof dad aanan mandate u lahayn sideedaad hadda la sii gelaya. Soomaaliya dib meel inay fadhiistaan oo ay go'aamiyaan oo inta badan baarlamaanka aanay kula soo noqon. taas waa marxalad laga soo gudbay. يعني دستورك كملجارك وحيابه بدن أو مانت دستوركي كملجارك وحيابه بدن أو مانت سمينا ويكو قرنايين دك بدن وحيو فسر يعني دستورك مانت وحن إنه لسود دقوا عشرة دستورك مع عصبة دبوا يجلس لو سميه ولا دمستر وحي خلاف سنة كنت حجر لو حي أنت شرعي طبعا جبتروك كومنا شرعي طبعا كي جبتروك كومي هاي أنت قضوك كومنا أول أنت كومي لكن ولا هجاجي ظروفتي أول بواكم الجار لو يري على قصاري ظروف أنا كمل جار نقولين أيالك. معناها مدحوينه ودفاع عنا إياه وحكي بدل كت السورك صابته وعقول ليه يرتق ضبدي تريدوا أنتوا دي شبتردنا وشان طبعا كودي ولا جات شيء وحبال القرحي معناها وحلو قصة ضري وسائدة ما شرته وحي كرد جاي كمل جار لماذا أيالك بدله أيو ليه بلان ودنا وركيس واسي سعشده دولتنimada Soomaaliya waasi socoshada geedi socodka dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed waasi socoshada himiladii ay shacradahaas soo baxa dood adag in laga yeesho kadibna laga heshiyo. waxaan soo ifbaxa kala duwanaansho aragti marka doodahaas lagu jiro ee masiirka ummadda laga doodayo. laakiin waxa ugu muhiimsan waa in ay hay-adaha dastuuriga ah gaaraan go-aanka ugu habboon ee ugu dambeeya iyaga. kaas ayaana sharci ah oo ummadda in loo wada hoggaansamo ay tahay. sharcigaas meesha yaallo adinka oo go-aamiseen oo gaarteen iyo annagoo maxaan ku rahaa dalka mas-uulka ugu sarreeya intaba meeshaan wixii gacanta loogu taagay ee lagu ansixiyey ayay tahay. macnaha wuxuu sheegayaa madaxweynuhu wixii baarlamaanku uu ansixiyo inay sharci yihiin. dadka Soomaaliyeed
iyo maamulada Soomaaliyeedna inay u hoggaansamaan sharciyanna waa wax saxa sababtoo ah dadka Soomaaliyeed baa soo doortay xildhibaanadan shaqadooduna waa maxay waa sharci dejiyayaal sharcigay dejiyaan sharci cusub bay soo saaraan sharcigay toosiyaan waxa ay qabtaan waa wax shaqaynaya garbu u leeyahay madaxweynaha arrintaas shaqada ay qabteen oo ah midda maanta uu ku joogo baarlamaankuna ku joogo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddan ay ku joogaan waa middaas waana mid sharci ah waana maaragtay wax maaragtay biyo kama dhibcaan ah inuu madaxweynaha uu ku saxan yahay sharci ahaan arrintaas aan ku soconno hadalkiisa sidaas awgeed waxaad muujiseen in baarlamaanka federaalka ah uu yahay meesha ugu dambaysa ee lagu xalliyo khilaafaadka sharci oo aan weliba waxaan rabaa halkan inaan si gaar uga khilaafaadka sharcina baarlamaanka lagu xalliyaa waxaa la rabaa maamul goboleedyada tuhunka qaba ee diidan arrintan inay u yeertaan xildhibaanadooda inay la tashadaan la hadlaan waxay diidan yihiin u sheegaan kala tashadaan xildhibaanku hadduu go-aan gaaro go-aankiisa saas kale marka adduunka waxaa la sameeyaa haddii xildhibaankii aad soo dooratay uu kugu siyaasad noqon waayo waa la iska daayaa waxaa la sugtaa xilliga doorashada dambe sharcigii uu soo saaray wuu dhaqan gelayaa waa dhaqan gelinaysaa laakiin xilligii doorashada xildhibaanada marka lasoo dooran doono ayaa waxaa ka shaqaynaysaa sidii xildhibaankaas uusan ugu soo laaban lahayn kursiga maadaama uusan kugu siyaasad ahayn shacabka ayaa waxaa ka gadaysaa wixii uu ku qaldanaa hadduu qaldamay shacabkaa waxay soo saarayaan oo soo dooranayaan xildhibaan kale oo ka dugan oo aad soo sharaxatay xisbigaagu soo sharaxday maamulkaagu soo sharaxday oo siyaasiyan gruubkaagu ay soo sharaxdeen sidaa daraaddeed in dowladnimada la wiiqo oo loo wiiqo xildhibaankii aniga aan keensaday ayaa igu siyaasad noqon waaya darteed in Puntland iyo Jubbaland ay u joogaan oo yiraahdaan Soomaaliya dowladdii lama shaqaynayno maadaama xildhibaanadii aan soo dirsanay ay nagu siyaasad aysan ahayn waa arrin qalad oo aad u weyn maana aha maaragtay wax loo dul qaadan karo aan ku soconno hadalka madaxweynaha weli kama dhicin maanta ugu horeysa cilad iyo ceeb ay yeelatay ma jirin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego hawshaas shaqadaa sharcigeeda aada soo ansixiseen xukuumadda iyo guddigii madaxa bannaanaa ee idinku aada samayseenna ay dhaqan gelinayaan macnaha ay ku fadhido waa isbeddel siyaasadeed oo dalkan dib u habeyn siyaasadeed aan dhaho dib u habeyn siyaasadeed oo dalkan ka dhexaysa waa 1960kii markaan xorriyadda qaadanay 10 sano oo nala soo diyaarinayay oo talyaanigii uu soo diyaarinayay oo wax walba nidaam naloo dhisay ayaa dhaxalnay laakiin mid Soomaaliya ay iyada fikirkeeda iyo taladeeda iyo awooddeeda ku samaysatay ma ahayn walaalaheenni waqooyiga looga yimidna marka laga reebo muxuu ahaa adjustment yar way nala qaateen dowladnimadii noocaas ahayd in lagu socdo 9 sano laba doorasho markii lagu galay waad ogeydeen abdamigi dhacay intii ka dambeysay 20 sano iyo 36 sano hadda maray 57 sano sanadka 58 hadda la sii galaya Soomaaliya dib u habeen siyaasadeed oo dhab ah weli kama dhicin maanta ugu horeysa waxa adigu aad go'aamiseen iyo go'aamada aad halkan ku gaarteen waa dib u habeen siyaasadda qaranka ee Soomaaliya oo dhan oo dib loo habeeyay macnaha shaqo la qaban waayey 58 sano ayaan maanta qabanay meeshii la ammaani lahaa oo la soo dhaweyn lahaa ayaa dalkii la kala jaraya oo maaragtay dad shisheeye u adeegaya oo siyaasad shisheeye wata ayaa waxay leeyihiin waxa la qabtay waa wax qalada waxay diidayaan Soomaaliya 58 sano kadib inay leedahay dastuur sharci ah aan ku meel gaar ahayn in Soomaaliya doorasho qof iyo cod ay aadayso in Soomaaliya ay shidaal qodanayso in Soomaaliya ay amnigeeda suganayso in Soomaaliya ay nabad noqotay in Soomaaliya ay ganacsi la galayso dawladaha adduunka
sida shirkadii la dhisay ee haddeer kalluunka ay wada yeesheen Soomaaliya iyo Turkiga oo 50-50 konton iyo konton ka wada leeyihiin oo maanta China ay tiri qofkii Soomaaliya oo kalluun usoo iibgeeyay China xataa cashuur laga qaadi maayo fiiri qof walba Soomaaliya inuu doon dhisto shabaqna soo gato kalluumaysto shirkadda kalluunka ee Turkiga iyo Soomaalida wada leeyihiin ka iibsho dalku barwaaqo noqonaya shidaal baa la qodayaa markuu shidaalka nagu soo wareego ilaa hadduu bilowdo xataa Soomaaliya barwaaqo noqonaysa waxaas la diidan yahay aan ku soconno hadalka madaxweynaha 169 Soomaaliya ay ka dhuntay ee 57 sano ay ka soo wareegtay ayaa go'aamisay in Soomaaliya wadadaas dib loogu celiyo oo ay halkaas ka jaan qaado waa wado furan oo aan ku carari karno oo aan uga daba tegi karno qeyrkeen wadooyinkii hore aan ku soconay ku meel gaarnimada iyo doorashada dadban iyo waxa la midka ahay jadda duurka cidlada uu wada lahayn annagoo marayna waa weligeen asaageen kaba daba tagneen laakiin maanta asaageen intaan ka daba tagnaa muddo gaaban ayaan dhaafi karnaa lianna wada furan oo la wada yaqaano adduunyada taqaano annagu aan naqaano sharciyo leh meesha ka qaldan cilad iyo ceeb ay yeelan macnaha madaxweynuhu wuxuu la qiiraysan yahay shaqada Soomaaliya ay qabatay iyo horumarka la gaaray baarlamaanka shaqada uu qabtay madaxweynaha shaqada uu qabtay qiimiga iyo weyninka iyo xijmiga ay leedahay iyo maaragtay si aysan dadka Soomaaliyeed badankood isu fahansaneen in Soomaaliya maanta ay noqotay wadan dimuqraadi ah qof iyo cod aadaya dastuur aan ku meel gaar ahayn oo buuxana leh maaragtay waa wax weyn dowladda Soomaaliya shaqo culus ay qabatay maaragtay dadka diidan horumarka Soomaaliya kaliya ka soo horjeeda adduunku wuu jiraa dabacsanaan meel walba ka jirtaa Sacuudi Carabiya waxay u dabacsan tahay Israa'iil ayadoo haddana qadiyadda Falastiin isku dayaysa inay dhowrto way jirtaa dabacsanaan dowladda Soomaaliya ay u dabacsan tahay imaaraadka inaysan tilaabo fiican ka qaadin inkastoo su'aal la weydiiyey wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Ali Balcad uu sheegay in hawl laga hayo shaqo laga hayo joogitaanku saldhig military ka sameynayaan Somaliland ma jirta oo ma la socotaan arrinta imaaraadku inay meesha saldhig ku leeyihiin kuna lahaayeen ayna sii balaarinayaan wax qarsoon maaha Israa'iil inay meeshaas ku dhex dhuumanayso iyo wararku sheegayaan dabcan xooga badan aan ka helna waa jiraan wax way ka jiraan laakiin intay gaarsiisan tahay weli laakiin in saldhigga imaaraadku ku leeyahay berbera in Israa'iil ka dhex shaqaynayaan xoogaas waa cadiyin marka tan iyo aqoonsiga miyaa dardargelin ayay ka bilaabeen way u badan tahay soo imaaraadka kuma idaan amrinayna inay guud ahaan dalka isaga baxaan imaaraadku in dalka baxaan waa amarnay joogitaankooda berberana waxaan ka wadnaa qiimeyn oo xagga dacwada ah inaan maxkamad geyno doodaasna way socotaa looyaraa ku jira waxaan ku dadaalaynaa imaaraadku bacdamaa aan amray dalka inay ka tagaan joogitaanka ay sii joogaan inuu xadgudub yahay ayaan aaminsanahay talaabo ka haboon waa ka qaadi doonaa ayagu waxay ku andacoonayaan waxa jooga dowladda maahan waa shirkad la yidhaha Dubai World ee dowladda ay ku andacoodaan laakiin xogaha ahayna waxaa waaye way isku dhex jiraan marka amarkii dowladda kama fulin Puntland iyo Somaliland imaaraadku waa joogaan imaaraadku wasiir dowluhu wuxuu sheegayaa inay maaragtay dabacsanaan ay jirto oo dhanka ganacsiga Puntland iyo Somaliland qarashada ka soo galaya dartood loo dabacsan yahay oo shirkadda DP World inay tahay shirkad aan dawli ahayn sida uu aaminsan yahay laakiin sida loo yahay waa shirkad dawli ah oo dowladda imaaraadka hoos jirta dabacsanaanta way jirtaa dabacsanaanta waxay ka jirtaa Sacuudi Carabiya oo Soomaaliya ka baawar weyn kana hanti badan aan dhageysano Maxamed bin Salman oo wax laga weydiiyay xiriirka Israa'iil ka dhaxeeya ee Sacuudi Carabiya Till now, we got to see where it will go. Get Israel back, as a player in Middle East. There were reports that you had suspended talks. No, that's not true. Not true. So you think, if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. We have a good negotiation. أنا wuxuu ku leeyahay
Israa'iil waxaan ogolnahay inay noqoto cayaaryahanka siyaasadda ee bariga dhexe. Waxaa la weydiiyey hadalladiinii iyo wada shaqayntiinii ma joojiseen oo ma jarteen, markaasuu yidhi lama joojin, wada hadallo waa leenahay, xiriirna waa leenahay Israa'iil. waxaa la weydiiyey macnaha Israa'iil iyo adinka xaaladdiina xaggee maraysa, markaasuu yidhi maalinta ka dambeyso waa isku sii dhowaanaynaa. waraysi kale uu bixiyena wuxuu ku sheegay ra-iisul wasaare walba ama madaxweyne walba oo yimaado Israa'iila inay rajaynayaan in la shaqayn doonaan. macnaha fiiri waa political maaragtay dabacsanaan siyaasadeed. dabacsanaan siyaasadeed markay jirtana waxa weeye Soomaaliyana maxaa ka saaraya dabacsanaanta Soomaaliya meesha wiigga ka tahay waa dhinaca Yuhuudda iyo Imaaraadka. saasoo ay tahay haddana inay dacweeyaan shirkadaha qaar dalka ka saaraan shaqo badan ay wadaan dowladda Soomaaliya, laakiin dabacsanaan oo waxaa jirta dhanka awoodda iyo enforcementiga inaan ciidan loo dirayn oo la lahayn baxa oo aan maaragtay si xooga aan looga saarayn. macnaha madaxweynaha waxa uu sheegayna waa intaas. maadaama ay jirto in adduunyadu kan kaa xooga weyn inaad si siyaasa isaga difaacid oo aad cadow badan aad isku soo jeedin. dhanka kale sida tusaalaha markaan hadda ku siiyo, Sacuudi Carabiya ma ogola inay Iiraan yeelato nuclear, oo Maxamed Salmaan wuxuu leeyahay hadday nuclear yeeshaan annagana nuclear ayaan samaysanaynaa. laakiin ma ahan maaragtay wax macquul ah inuu u dabacsanaado Israa'iil, Iiraanna uu maaragtay farti taagtaan la taagaya uu yiraahdo. aan dhageysana bad hadalka Maxamed Salmaan. To counter Iran. السعودية لا تريد أن تمتلك أي Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? السعودية لا تريد أن تمتلك أي Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. haddii maaragtay Iiraan nuclear samaysato maxaa sameynaysaan? hadday Iiraan nuclear samaysato annagana sida u egtaan loo ekaanaynaa, waa macnaha waa samaysanaynaa annagana. maaragtay madaxweyne xasan sheekh hadalladiisa haddaan ku soconno uu ku difaacanayay wax ka beddelka lagu suubiyey dastuurka iyo xilliga teemka madaxtinimada ee dowladda. aan ku soo dhamaystirna bal qaybtan iyo kalsoonidooda idinku siiyaan baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. runtii in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu sii wato xilgudashadiisa ma aha arrin ku timid duruufo siyaasadeed. maanta kalfadhiga 9aad iyo kalfadhiga 10aad inaan u ballanno oon ka hadalnahay arrin duruufo siyaasadeed ku timid ma aha. arrin maxaan ku iraaday dad iska jeclaaday inay meesha joogaan ku timid ma aha. macnaha madaxweynuhu wuxuu leeyahay waxay ku timid in hal sano oo kale aan sii joogno oo maaragtay termkii laga dhigay 5 sano. wax ku yimid maaha iska jeclaysi, waxay ku timid dastuurkii oo wax laga bedelay, si sharciyana wax looga bedelay. saasay ku timid inuu baarlamaankuna fadhiyo oo kale fadhi kala yeesho, dowladduna ay sii shaqayso. waa wax ku yimid si sharciya oo sharci loo soo maray, si ciyaar suuqnimo iyo musuqmaasuq kuma imaan uu leeyahay madaxweynaha. waana si saxa markii loo fiiriyo sharciyan loo fiiriyo baarlamaanku waa sharci dejiye, sharci buu dejiyey, wuu shaqaynayaa, dadka Soomaaliyeed oo dhanna way raacayaan. weligeed haddii qof iyo cod laga dhigo oo baarlamaanka lagu soo xulo qof iyo cod, markay inta fariistaan isku raacaan gacanta u taagaan sharci cusub, sharcigaas sharci buu noqonayaa, wuu shaqaynayaa, maxkamadda raacaysa, madaxweynaha raacaya, shacabkaa raacaya, ciidamada raacaya, cid walba raacaysa. waa wax sharciya. deni baa diiday iyo Axmed Madow baa diiday iyo Qorqoraa diiday iyo maamul goboleedaa diiday, waxaas dhan ma soconayaan. sharci waa sharci. dowladdana waxaa looga fadhiyaa ciidan xoog badan in dhisto, maaragtay dalkana sharciga la enforce gareeyo oo sharcigu uu shaqeeyo
ayaa dowladda looga fadhiyaa sidaan la soconna adduunka waxaa ka bilowday kulayl aada u daran north america dhul badan ayaa gubanaya dhulkaa gubanaya waa dhul biyo leh oo qaboobaa waa dhul geedo iyo dhir leh waa dhul aada iyo aada maaragtay u barwaaqaysnaa ayaa gubanaya waa wax la yaab leh cimilada adduunku way soo bedelaysaa adduunku wuxuu soo noqonayaa mid aada u kulul ummadda soomaaliyeed waxa ay maaragtay ku jiraan deegaano ay xdegan yihiin aada u kulul dhulka soomaaliyeed kuleylka ka jira isaga laftiisa waa mid lagu qiyaaso 84 ilaa iyo 94 u dhexeeya kuleylka dalka Soomaaliya haddaba kuleylka noocaasa ee Soomaaliya ka jira ma keeni karaa inuu dhaliyo dab noocaan oo kale ah ma laga yaabaa macnaha guryihii oo dhan baa gubanaya dhulkii oo dhan baa gubanaya waxaana keenaya waa kuleylka qoraxda waxaa keenaya cimiladii oo isbedeshay isbedel waxaa ka jira adduunka la yaab leh Soomaaliya kuleylkeeda berbere iyo boosaaso wuxuu tagaa gaaraa kuleylka mar 113 waa kuleyl dab dhalin kara marka dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay iska ilaaliyaan xilliyada kuleylka uu jiro oo maalintii waxaa laga qaadaa cudurro fara badan jirooyin wadna xanuun qalal qofku inuu xataa wadnaha istaago oo dhintaa laga yaabaa dhici karta marka dadka Soomaaliyeed inay ka taxadaraan oo waxaan ku boorinaynaa xilliyada kuleylka inay la socdaan mar walba maalin walba kuleylka intuu marayo maalinta kuleylka badan yahay inaad biyo qabow qaadatid socodka badan oo lugta badan inaad joojisid koofi inaad qaadatid kaba dhulka markaa haddaa lugeynaysa qabow kaa celinaya kuleylka kaa celinaya inaad wadatid gaari inaad raacdid socodka badan oo xilliyada aadka qoraxda u kulushaana aad iska ilaalisid halkan waa FCTV barnaamijka waxaan la socodsiinaa anoo Farxaan Ciraa barnaamijka caawa intaas ayaan kusoo koobaynaa noo share gareeya like noo saara follow noo soo iraada waa mahadsantihiin I